السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كنا هان إيمان وأنا جوا شين حنان دقن. هل كان قد أورنا سنوات القناة كنا هان إيمان. ما عندنا برامج هنا وحين دكوكو سوق بندونا شكلي أسد أصلي بارتو خيبت دي لبعض شكل يعني أصلي يو أسد وهل كذا ناقص في ساعته وحين مريس قيبتي هوري أصلي يو أسد ودمي جامعة دي هذا نسكت ديارنا إني فرتان أما أي سمستان ganacsi ayaga oo qaas ah meesha ay dad ay uga shaqeyn lahaayeen asli waxay tiri waan fikirnay oo waxaan ku fikirnay inaan furano ama sameysano ganacsi anaga noo qaas ah intaan dad u shaqeyn lahayn ama aan ka shaqeyn lahayn shaqooyin adag sida shaqada hadda aan ka shaqeyn jirno ahayd shaqo aad u adag laakiin aan kusoo meel gaarno waxbarashadeena aan kusoo dhameysano noloshadeena aan kusii wadanay waxay tiri waxyaabo yar oo noo yaalay oo anaga aan meel dhiganay iyo waxaan isku darsanay odaygii adeer ahay oo din aan ka qaadanay iyo dad macaamiil ah waxaan furanay meel yar oo bibita ah oo cabitaanada iyo cuntooyinka fudud lagu gado ama maqaaxi yar oo ama maqaayad yar oo casiriyaha iyo waxyaabaha fudud iyo dadka cuntada ka gaari waayay wax ka gataan kalluunka iyo hamburgerka iyo adi waxaas iyo rooti yar iyo cunto yar lagu sameeyo adiga cabitaan iyo shaah meeshii bibitada ahayd ayaa aniga gadi jiray bilihii ugu horeeyay aad ayay u adkeeday sababtoo ah hadda macaamiil suuqa ku leeyahay qofna ku aqoonin way adag tahay sida wax laga gato waxa u baahan tahay in lagu barto mararka qaar wax yaraan soo shaqeyn jirnay marna waxay ahaaday inuu aan wax meesha laga helin أسد يا وحيري ماشي اسمه متجي كرنا مع إنه حلقي هلا مع اللي جوينايو أنا وحن كل عبارة شقة ذا إلا ماشي إنه كلك عيسو ونلبرنايو ومحكه لينو هدي أنك ويننا وحين قندون تعينا اسكحرنا وأن رادينو وحكلا وحتر له عن شقة بدلنا waxay sida ahaataba adiga bilba bisha ka dambeysay way ka soo roonaanaysay suuqina waan la ka baranayay xaaladeena waxay noqotay mid wanaagsan oo way isku toostay ganacsigeena wuu fiicnaaday dhanka kale tana dhankii aniga waaridkay iyo familkayga kama quusanin oo mar walba waan tagi jiray iradooda ayaan gargaraaci jiray balse nasiib daro albaabka laygama furi jirin oo waa la soo ceyrin jiray waxaana li ugu dari jiray xabaar iyo deeraan naga tahay iyo horteena soo istaagin iyo waxyaabo la mid ciyaalka walaalahayga aniga iga yareerayaan banaanka ka raadsan jiro oo la kulmi jiray inkastoo labada aniga iga yar oo aniga daad igu xigtay daad ku sii xigta ah oo markaas ilmaha guriga ugu roonay ay diideen inay la kulmaan oo markay arkaan iga carari jireen ama dhihi jireen ma rabno inaan kula hadalno haddana kama quusano waa familkayga oo mar walba waxaan isku dayi jiray inaan u dhawaado waxaan oo dhashay cunugii ugu horeeyay waxayna ahayd gabar markii noo dhalatay gabadheena aniga maqaayadii markaan xaamilada noqdo waan ka shaqeyn waayay gabar yar aan qabsaday oo maqaayada ka shaqeyso odaygaygan wuu caawin jiray oo asad galabtii markuu shaqada ka soo rawaxo ilaa habeenkii ayuu ka shaqeyn jiray maqaayadii inta kale tan gabadha ka sii shaqeyn jirtay markaan dhalana gabadhiya guriga u soo wareejiyay ana shaqadeedii ayaan sidii u sii wato gelina ana ka shaqeyn jiray gelina asaga ka shaqeyn jiray maadaama cunug oo reerku ku soo biiray gabar aan ku soo biirto gabadhina ay u baahan tahay inaa wax la siiyo iyo gabadheeni yareedba qoyskeeni 4 qofood hadda ka kooban yahay nolosha xoogay way iska adkeed oo inaan wax meel dhigano iyo inaan nolosheena ku maareen way adkaatay haddana waan fikirnay oo waxaan dhahnay de maxaa kaloo xal ah intee kaloo wax ka bilaabi karnaa xagee kaloo wax ka furi karnaa haddana waxaan isku afgarana marka dambe inaan bilaawno iskuul baraafaad oo iskuul baraafaad oo wax lagu barto luqadaha iyo wixii lamid ah maadaama aniga aan wax soo bartay ilaa heer jaamacadeed sidoo kale tana asad uu wax soo bartay asigana ilaa heer jaamacadeed uu jaamacadii soo dhameeyay waxaan dhahnay macallimiin ma noqono aan furano iskuul weyn ma awoodin inaan kireysano dugsi weyn ama meel iskuul weyn aan ka dhigano
waxaan kireysanay guriga aana ka degnay qolkiisa irad banaanka halka ayaana ka bilawnay dadka dariska caruurahooda inaan wax barno iyo dadka waaweyn oo aan wax soo baranay rabo inay wax bartaan ama luqad English ha noqoto ama luqada ama af Soomaaliga oo la baro ha noqoto xisaabta caafimaadka iyo waxyaabahaas ana waxaan soo bartay caafimaadka waxaan wax bari jiray dadka oo rabaan inay caafimaad course caafimaad ay bartaan meeshii aan ka bilawnay inaan dadkii wax barno adiga dhowr arday ayaan helno ilaa 10 arday 10 arday ayaan sida ugu bilawnay waxaana dhigi jirnay 2 gelin oo gelinka subaxdii ka bilaabato 3 saac subaxnimo ilaa 5 saac aniga dhigi jiray galabtii 9 saac ilaa habeenkii 2 saacna waxaa dhigi jiray asad waxay sidaas ahaataba ardaydeena ayaa badatay qolkii aan ugu yaraaday waan baxnay qol kale ayaan kireysanay oo weyn oo laamiga ku yaalo qolka markaan kireysanay ardaydii sidaas soo bateen oo arday keentay iskuulkii wuxuu noqday iskuul najaxay oo guuleystay oo ardaydii ay wax ka bartaan sidoo kale waxaan muraajaceen jirnay wax sii bari jirnay ardayda dugsiyada ka haray oo sanadadaas aan keensanin waxbarashada ama imtixaanada ku soo dhacay ayaa isku soo dhisi jiray iskuulkeena arday markuu iskuulkaan imaado iskuulkiisa u laabtana daaragta ayaa loo gudbi jiray marka imtixaan laga qaado fasalkii uu ka haray ayuu 6 bilood gudahood u gudbi jiray marka maadaama ay ardaydii arkeen inay wax ku baranayaan iskuulkeeni waalidiintana ay arkeen waa la isku sheegay xayeysiina u sameynay oo waxaan ka xayeysiinay idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo FM ka sidii ayuu iskuulkeena ku noqday iskuul magac leh arday badanna sidii aan ku helnay dad waaweyn iyo dad yaryarba iskuulkeena wuu sii weynaaday oo xakireysan filadhan dhowr qol ayuu noqday waxayna noqotay in anaga iskuulkii aniga shaqaale aan sii qabsano oo macallimiin kale aan raadsano iskuulka wax nagu baro alxamdulillah nolosheena way noo fiicnaatay guri ayaan gadanay guri aan dhisanay cunugii labaad dhalnay aniga nolosheena sidii iskaga fiican tahay ayaa maalin maalmaha kamida maadaama iskuulkeena uu noqday iskuul horumaray waxaa jiray wareysiyo ay dadka wareysanayaan iskuulada iyo aday meel ganacsi markaa furato waxaa jirta idaacado ku soo booqanayo oo ku wareysanayo oo ku weydiinayo asbaabta aan meeshan ku gaartay iyo heerka maanta mareysay waxaas waxaan noo imaaday idaacadii sidii nagu wareysatay aniga asad meeshii ka soo muuqanay waxaan ka sheekeynay nolosha meesha aan ka soo bilownay iyo maanta meesha aan marayno nasiib wanaag barnaamijkii ayaa waxa arkay dad badan ayaa daawaday barnaamijkii arintu waxay sida ahaato noloshii cakirneed alxamdulillah waan ka baxnay waxaan noqonay dad isku kalsoon lugahoodana isku taagay maadaama aan ahayn kali oo aan dareemayna family la'aan haddana waxaan ahayn dad ayaga tiir isku noqday oo noloshoodii dhistay alxamdulillah ilaahayna wuu nagu guuleeyay annagana waan is aaminay oo waxba nagama halaabinayay xalka wuxuu sidaas ahaadaba waxaa imaaday maalin maalmaha kamid ayaa asad la soo wacay telefoonkiisa oo waxaa soo wacay oday nin oday wuxuuna dhahay asad miyaa inaan kula kulmaa u baahanahay markaas wuxuu yiri okay maxaa iga rabtaa markaas wuxuu dhahay waxaan ahay oday adeerku ugu aadan waxaan aqaanaa familkaaga waxaan rabaa marka inaan ka wada hadalno arintaas oo aan is aragno asad wuu yaabay wuxuu dhahay aniga sidee wax u jiraan aniga adeer ma qabi maxaa dhacay markaas wuxuu yiri wax walba waad ogaanaysaa waxaan rabaa inaan kulano aan is aragno wuxuu yiri waayahay waan kugu soo warcelinayaa asad ayaa ii imaaday wuxuuna ii sheegay arinta sida ay u dhacday iyo odaygii soo wacay waxa uu ku yiri wuxuu ii dhahay odagaas ay soo wacay waxaan u maleynayaa inuu igu ciyaarayo ama uu yahay qof oo liisoo adeegsaday ma aqaan sababta wuxuu dhahay familkaaga aqaana haddana adeerkaaha ahay wax iskeenayana taas ma aha waxaan ku dhahay wax walba ha ahaatee la kulan odayga oo balame ninkii ayuu balamiyey asad maalin maalmaha kamid ah way is arkeen wuxuuna ugu sheegay inuu maxaa la dhahaa adeerkiis yahay oo aabihiis ay ilmo adeer yihiin adoog aabihi asaga asad dhalane intaasoo sano uu raadina asaga iyo familka dhanba ibaadi goobayeen asad wuxuu dhahay sidee macquul ku tahay sayno ku ogaateen
wuxuu yiri markaa ku arkay idaacada aan ka arkay ayaan dareemay inaad tahay wiilka walaalkay sababtoo ah waxaa tahay wiilkiyo meeshan aniga walaalkayga oo biyo ismarin waa un ka dhalinyar tahay moogi oo dhalinyara tahay moogi labadiina isku mid ayaa tihiin wuxuu ku yiri sideen kuga aamina aniga sidee kuga aamina markaas wuxuu dhahay aniga maan ogaa inaa aba la'aan tahay may qisadaada ma ka sheekayso waa may sideen ku ogaad arinta waxaa jira dad badan oo aniga dariskayga ahay ama isla soo kornay oo og aniga inaan aaba lahayn ayuu ku yiri adiga yaan hadalkeedu ku daalinay sidaas sheekada u ahaataba duqay iyo asad ay wada doodeen markii dambe waxay isku afgarteen inaa la wado oo reerka la soo tuso asad maadaama aabihiis uuna joogin reerka intiis kalena uu soo arko lana tuso sawiro cadeynaya asad iyo aabihiis inay isku agyihiin maalin kaleeta ayay ballameen asad reerka ayuu u tagay way soo barteen wuxuu arkay sawiradii aabihiis oo yar waxaa moodaa in asad sawirada laga qaado wuu soo qaaday dhowr xabo ayuu ii keenay marka ii keenay waxaan dhahay waxaan ma jiraan adaa gashay sawiradan sababtoo si aad iyo aad ay iskugu ekaayeen asad iyo ninka lagu sheegayo inuu aabihiis yahay maba la kala garanaynin xaalka wuxuu sidaas ahaadaba adiga asad waxaana la gudboonaatay inaan arintana baarno reerkana aan soo dhaweyno oo barano reerkii ayaan casuumay sidii la isku bartay maalintii dambe waxaa la go'aansaday in asad aabihiis lala hadalsiiyo odagii ayaa lala hadalsiiyey odaga wuxuu ku noolaay adiga qurbaha wuxuuna ahay oday maqan caruur kalena waa u haystay odaygii ayaa dhahay waan imaanayaa muddo bil gudaheeda hadduu ilaahay ka raali noqdo sidii ayuuna arintii inoo aheeday oo xaaladii waa isbedeshay anagana waxaan dareemaynay farxad iyo murugo ishareer socdo waxaana ka cabsanaynay inayna arintan run noqonin ama inay run noqoto oo aan faraxno run ahaantii waan la farxay asad sababtoo intaas wuxuu ahay ehel la-aan abtiyaashiisna waa ay deeriyeen hooyadiis waa ay dhimatay aabbo muu qabin ehel aniga iyo caruurteeda ahayn uu ku tiirsan yahana ma jirin inkastoo ayna waxba naga haleysnayn haddana qofka firaaqada gudaha ayuu ka dareemaya hadduunan ehel lahayn arintu waxay sidaas ahaataba muddo 22 cisho kadib asad aabihiis ayaa imaaday sidii ayayna isku barteen wuxuuna uga sheekeeyay sidii u kala lumeen asad aabihiis wuxuu ahaa askari ha ahaadee magaalada muqdisho ma uusan deganeen asad hooyadiisna waxbay baranaysay oo ardayad ayay aheeday sidii ayayna isku barteen wayna ismehersadeen meher hooso laakiin asad aabihiis waxaa yaqaanay abtiyaasha oo asad abtiyaashiisa iyo familkiisaba waa ay yaqaaneen oo isku ogaayeen gabadhan wiilka inay sheekaystaan laakiin maadaama inuu u ogoleen lahayn markaas intay waxbarashada dhammayso inay ilaa ay waxbarashada ka dhammayso inay nin guursato ayay waxay iska afgarseen asad aabihiis iyo hooyadiisba inay ismeherxadaan oo hoos ku mehersadaan gabadhan waxbarashadeeda markay dhammaysato oo reerka kasoo doono uu guri geysto intayna sidaas dhicin waxaa dhacay dagaalkii Soomaaliya ka dhacay 91 dagaalada markay dhaceen asad aabihiis wuxuu ahaa nin dowladda u shaqeeyo waa askari sidii ayuu dagaalka ku galay dagaalka markuu galay waa la kala qaxay laba reer oo waxay ahaayeen reerka asad aabihiis ma ahayn reer magaalada muqdisho oo labaduba waxay ahaayeen labadii reer ee markaas wadanka isku dagaalayay sidaas darteeda ayaa asad aabihiis inuu dhintay inuu nool yahay la kala garanayno wadanka sidii uga qaxay hooyadii asad dhashana ay qaxeen oo ay u qaxeen gobolada Soomaaliya gobolo kamid ah markaas nabad ahaa marka ay qaxeen ayayna asad hooyadiis ku soo baxay uurka cunugan oo ay leedahay ninkina meelay u raadiso aynan jirin wadankiina uu dagaalka jiro reerka ayay u sheegtay reerkana way aamin waayeen waxay dhaheen ninkaas waa naqaanay hadaa guursanaysan waa noo sheegi lahayd wiil waraagsan oo ahaa reerkeenu kamid ahaa maadaama uu asagii hadda maqan yahay ayaa marmarsimo ka dhiganaysa inuu ninkaas ka dhalay wax kale oo cadeynana ma haynin asad hooyadiisa ku cadeysa ama reerkan ay ku qanciso arintu waxay sida ahaydba abtiyaashii iyo asad
awowgiisaba waa gabadhii waa ay ku dayriyeen oo wax walba ay dhib kasta ay geysteen laakiin waxaa xabadka u garaacday asad ayaydiisa oo tiri gabadhayda cunugeeda waa aniga cunugayga waan isla dhimanaynaa ama waan isla noolaanaynaa lagama yaabo marnaba inaan gabadhayda iyo cunuga ayayda u ahay aan dayriyo xaalka wuxuu sidaas ahaadaba asad ayaa dhashay hooyadiisna ayayda ayay ugu tagtay waxayna baadigoob u gashay inay raadiso wiilkii cunug uu dhashay iyo familkiisiba waxay tagtay gobolada Soomaaliya gobolo kamid ah badan nasiib daro laakiin waa ay soo weysay sababtoo ah markii dagaalada dhaceen waa qaxeen waxayna u qaxeen dibadda oo dalkaba ma joogeen wiilkan uu soo raadiyay oo wuxuu soo raadiyay gabadhii uu soo raadiyay wuxuu maqlay dariskii yareerihii oo ka soo raadiyay mar ayuu maqlay inay cunug dhashay oo ay wiil dhashay gabadhii laakiin uu labalabeenayay inuu wiilka asaga dhalay oo wiilkiisa yahay iyo inay guursato oo gadaal wiilka ka dhashay dad oo dibadda u qaxay ayagana oo familkaas daris ahaan jiray ayaa uga sheekeeyay qisadii inay wiil asaga u dhashay gabadhina ay raadinaysay way isla raadiyeen gabadhii laakiin nasiib daro waa ay waayeen marka dhowr iyo 20 sano kadib ayuu asad iyo aabihiis dib u kulmeen laakiin nasiib daro asad hooyadiis waa ay dhimatay oo farxadda lama ay qaybsaneen si walba ay ahaataba asad aabihiisa wuu imaaday reerkii asad ayuu la kulmay ayayadii iyo wiilasha abtiyaashii oo la kulmay meeshii ayaa lagu duceystay xoolo lagu qashtay wiilkana uu noqday wiil family sidoo kale aniga reerkeyga ayaa loo tagay reerkii ayaa loo geeyay suuriyadooda waa xumeen iyo xaalba waa la siiyay alxamdulillah reerkeena wuxuu noqday reer buuxa oo laba dhinacba leh dhowr sano oo rafaad iyo murugo ah ka bacdi maxaa la dhahaa asadna sidii ku noqday nin aaba leh aabihiisna wuxuu ahaa nin shirkado waaweyn magaalada Muqdisho ku leh hanti leh nolosheena sidii ayay noogu kala kacday hadda waxaan haysanaa hanti badan alxamdulillah waxaana ka mid nahay dadka ugu magaca dheer magaalada Muqdisho hadda waxaan haysanaa nolol qurux badan waxaana ku noolnahay wadankeena Soomaaliya weli waxaan haysanaa noloshii aan u soo dagaalameynay ee aadka u quruxda badneed waxaan nahay dad isku qanacsan waxaan nahay ul iyo diirkeeda wax labadeena soo kala dhexgeli karo oo tashuush ama wax ahna ma jiro nolosheenana waxba iskama bedelin shalay waxaan isku aheena garab maantana sidoo kale ayaan garab iskugu nahay alxamdulillah nolosheena waan ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay waxaana jeclaysteena nolosheeda idin la qaybsado qisada nolosheeda aan soo maray waxaana leeyahay gabdhaha aniga oo kale ee nolosha wajahayo qofka ay jecel yihiin sida dhabta ay u jecel yihiin waqti dheerna ay soo wada mareen ha uga tagina duruuf ama magac ama wax qofkaas haysto duruuf walba oo maanta jirto bari way isbedeli kartaa qof la dhashay ma jiro duruufta wax walbana waqtiga ayaa dawo u ah waxaan dhihi lahay labada qof oo isjecelahay is aaminaan ha noqdaan dad isku kalsoon ilaahooduna ku kalsoon ayaga garab ha iska dhigtaan hana iska rab qabtaan si kasta oo dad idin soo dhex galo ama si kasta oo dad idin caawiyo waxba idin matari karaan waxma idin kama naaqusi karaan hadana adinkeena noloshiina aadan hore u wadina waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin inaan noqotiin dad guuleysto oo noloshooda ku guuleysto lamaanaha dhalinta yarna waxaan leeyahay noqdo kuwa noloshooda ku guuleysto kalsoonidana waa furaha ugu horeeya oo nolosha haduu ilaahay karaali noqdo qisadii asad iyo asli ee aadka u quruxda badneed halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaana ka qaadan karnaa tusaale qofkii u dhabar adeega noloshiisa inuu meel fiican ka gaari karo oo nolosha u dhabar adeegtid waxaa helaysaa guusheeda insha Allah. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.